qasaan gaar wuxuu leeyahay hanti meeshan ilaa $160,000 ay taalay dhamaanteedna iyo macal guriga waa isku baabeen halkan oo ah xaafadda laba dhagax degmada warta nabadda ee gobolka Banaadir goor sii horeysay waxa uu dab ka kacay maqaayad halkan ku taalo oo lagu magacaabo Qoobay maqaayadan ayaa ahaan jirtay meel aad u mashquul badan xilliga dabka uu kacay waxa la sheegay in gabi ahaanba shaqaalaha goobta ay ku sugnaayeen dhammaan hantidii ku jirtay maqaayadan ayaa maamulka maqaayadu waxa ay noo sheegeen in gabi ahaanba ay burburtay oo wax laga badbaadiyay dabka aysan jirin sidoo kale ma jiro wax khasaare ah oo dhanka nafta ah oo ka dhashay dabka ka kacay maqaayadan waxaana lagu guuleystay ugu dambeyntii in la damiyo dabkii ka kacay maqaayada dhibku wuxuu ka dhacay maqaayada Qoobay oo laba dhagax ku taalo waxa qarxay korontadii markay qaraxday mishiinka meeshii yaalay saliid buu lahaa saliidii korontadii dabkii gaaray dabkii kadib alwaaxu uu sii gudbay alwaaxii kadib gurigii sare alwaaxu ahaa dabkii sidii uu sii faafay alxamdulillah dabkii markii uu faafay wixii gudaha ku jiray shaqaalay iyo kastamkii meesha ku jiray u cararnay ka soo badbaadinay alxamdulillah laakiin dhaqaalaha ma ahane wax qof bini aadan kale oo wax ku gaaray ma jirto alxamdulillah shaqaalaha maqaayadan ka tirsanaa waa sax waxaan joogay dabka meel u dhow waana arkayay isla markaan arkay waan ku yaacnay laakiin awoodda alle ma la qiyaasi karo waan u dhawey wax yar oo socday ugu yaraan Mahad Qoobay oo ah maamulaha maqaayadan ayaa ka warbixiyay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dabkii ka kacay maqaayada waxaana tilmaamay in guud ahaanba hantidii taale maqaayada ay gubatay wax ka soo yimaadana ilaahan uga mahad celinayna saaka waxaan soo gaaray khasaare yar dab ka dhashay meesha korontada beeko ayaa wuxuuna gaartay saaka khasaare yar waa u jeedin meesha soo noqotay alxamdulillah ilaahay mahadiis waa ilaahan uga mahad celinaa bidin laakiin waxaan rajaynaynaa mar labaad dib soo laabo doono walaal qasaan gaar wuxuu leeyahay hanti meeshan ilaa $160,000 ay taalay dhamaanteedna iyo macal guriga waa isku baabeen wax ka dadka alxamdulillah laakiin wax dad igama dhimanin wax dhaawac iyo wax dhimasho mid igama imaan ilaahay mahadaas kale iyo baresa shock dhaliyay markuu dhaliyay boqos yar meeshaas ku yaalay makiinadaas biisada ku xiran tahay shock markuu dhaliyay saliid meesha taalo sii taabtay saliidina alwaaxa sii gubay saas guriga dhamaad isku gaaray wax dad oo dhaawac wala dhimasho gaareen ma jiraan bidnilaahi kariim meeshaan waxa ka shaqeey jirtay 8 qof 40 qof oo subax soo gasho iyo 4 habeen ka shaqeyso dhamaantoodna hadda shaqo la'aan noqonaya bidnilaahi kariim laakiin waxaan rajaynayaa shaqada kala dib ugu abuuri doon bidnilaahi kariim iyo meeshaan dhamaanteed markaa maal gelinay $160,000 ku maal gelin $160,000 wax ku daad ma jiraan dhamaantood waa isku baabaa haday dhismaha lahayd oo guriga aan ku dheereeyay iyo hadii ay qalab ahaan lahayd xasan kaafi xaaji maxamed Shabelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier